warqad sir ah oo uu Maxamed Siyaad Barre qoray ka hor geeridiisa oo la helay, waxaa diyaariyey Maxamed Xaaji Ingiriis. December 11, 2023. Maalinnimadii Talaadada ee bishii Oktoobar ay ahayd 10-ka sanadka 2023, waxa aan baaritaan cilmi-baariseed u tegey kaydka lagu kaydiyo dokumentiyada taariikhiga ah ee dalka Ingiriiska, UK National Archives. Waxaan daba joogay dhammaystirka daraasad ku saabsan dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka bilowday dhammaadkii 70meeyadii ilaa iyo bilowgii 90meeyadii. Waxaan halkaas ka helay faylal sir ahaan jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriisku ay ku kaydisay wixii xog ahaa ee ay ka heli jirtay arrimaha dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya iyo jabhadihii hubaysnaa ee la dagaalamayay. Faylka waxaa kaloo ku jirta warqad aad u xiise badnayd oo uu Maxamed Siyaad Barre u diray Kaaba qabiilada Soomaaliyeed bishii Oktoobar 1992. Warqadda oo ka kooban 3 bog, waxaa magaalada Nairobi ka soo diray safaaradda Ingiriisku uu ku leeyahay Kenya. Warqaddu waxay ku bilaabatay qoraal yar oo gaaban oo ay Canab Maxamed Siyaad Barre, oo uu dhalay Maxamed Siyaad, ay ku sharaxayso waxa ay tahay warqadda aabbaheed. Sida muuqata, safaaradda Ingiriiska ee Kenya ku taalla waxay warqadda ka heshay Canab lafteeda oo diblomaasiyiin ajnabi ah ku guddoonsiisay Hotel Pan Afrique ee magaalada Nairobi, oo markaas ay adres ka dhigatay Canab, sheegtayna in boxkeedu uu yahay 244144, mana sheegin qolka ay ka degan tahay hoteelka. Taariikhda ay ku qortay waa 19 bisha Oktoobar 1992. Waxa ay tiri, waxa aan idinku wargelinayaa dadaalka joogtada ah ee mudane Maxamed Siyaad Barre ee ah in nabad iyo xasilooni lagu soo celiyo Soomaaliya. Sidaas awgeed waxaa halkan ku lifaaqan warqadda soo socota oo ah mid iyadu is-sharaxaysa, oo ah fariin nabadeed oo ku socota dhammaan hogaamiyeyaasha dhaqanka Soomaaliyeed, kana timid mudane Maxamed Siyaad Barre, oo kula talinaya inay saacidaan dadaalka gargaarka iyo nabadda ee ay waddo Qaramada Midoobay iyo inay xal waara u raadiyaan mushkiladda maanta haysata Soomaalida si loo ilaaliyo ummadnimadooda. Meesha u dambaysa ee kofarka waxa ay Canab ku sheegatay inay tahay ergey gaar ah oo ka wakiil ah Maxamed Siyaad Barre, mana aysan ku sheegin wax taytal ah oo uu leeyahay aabbaheed, kadibna magaceeda ayay ku saxiixday. Waxaa hoos ku sii taala stamp ay ku dhufatay safaaradda Ingiriiska ee Kenya, oo taariikhdeedu tahay 26 Oktoobar 1992, oo u muuqata inay tahay maalintii ay sida rasmiga ahayd warqadda u guddoomeen. Bogga koowaad ee warqadda Maxamed Siyaad waxaa ku taalla staambada madaxtooyada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, waxayna ku taariikhaysan tahay 15 bisha Sebteembar 1992. Magaalada ku qoranna waa Lagos ee dalka Nigeria. Wuxuu ku bilaabay, waxaan jeclaan lahaa inaan kaga faa'iidaysto fursaddan inaan idin soo gaarsiiyo salaantayda si sharaf iyo xurmo ay ku dheehan tahay. Fariintaydu waxay idiin sidaa warbixin iyo talooyin ku saabsan xalka arrimaheena gudaha, waxaana la socda baaq ku wajahan dhammaan xoogagga ka ciyaari kara door wanaagsan hanaanka nabadda ee Soomaaliya. Arartaasi kadib wuxuu yidhi, muwaadiniinta dalkaygow, 2 sano ee ugu dambaysay waxaan markhaati ka ahayn burburka qiyamkii taariikhiga ahaa iyo hiddihii dhaqanka ee jiilasha mustaqbalka. Halkaas markuu marayo, hal mar ayuu gadaal u noqday, wuxuuna yidhi, waxaa muhiim ah in la xuso dagaalkii aan la galnay qabyaaladda wakhtigii la soo dhaafay. Wuu sii watay, wuxuuna xusay in markii taliskiisu ay duugayeen qabyaaladda aysan ka soo horjeedin dhaqankii jilibyada ee Soomaaliya, laakiin ay ka soo horjeedeen canaasiir, sida uu yidhi, ku howlan naftooda oo isticmaalaya qabyaalad iyagoo u danaynaya danahooda shakhsiga ah. Wuxuu intaas ku sii daray, faham la'aanta dadka caadiga ah aysan ku kala saari karin, kuwaas ayaa keentay inay taageeraan kuwa loogu yeero qabqablayaasha dagaalka, oo ku keenay ummadda Soomaaliyeed inay kufto iyagoo dadka u kala qaybiyey qabiilo iyo jufooyin, kana barakiciyey waqooyi iyo koonfur. Bogga koowaad wuxuu ku soo gunaanaday in hay'adaha kala duwan ee Qaramada Midoobay iyo ururada bini'aadamnimada ay muddo dheer ku howlanaayeen inay badbaadiyaan dadka Soomaaliyeed ee uu sameeyey dagaalka sokeeye, una fidiyaan caawimaad ka kooban cunno, daawo iyo dhaqaatiir,
taasoo keentay inay qaarkood ku waayaan naftooda, kuwa kalena lagu dhaawacay. Bogga labaad wuxuu ku bilowday inuu ka warbixiyo in kadib markii amnigooda la geliyey Qatar in bulshada caalamka ay go'aansaday laba arrimood: kow, inay joojiyaan wixii caawimaad ah ilaa xabad xoojin lagu heshiinayo, ama labo, inay cunnada sii qaybiyaan kana badbaadiyaan dadka baahida iyo xabadaha, ayna dadaal kasta ku bixiyaan in la joojiyo dagaalka iyo qalalaasaha. Isaga oo mar walba qoraalkiisa dhextaal uga dhigaya muwaadiniinta dalkaygow, ayuu bogaadiyey xoghayihii xilligaas ee Qaramada Midoobay Butros Ghali iyo magacaabista uu Maxamed Saxnuun u magacaabay wakiilkiisa gaarka ah ee Soomaaliya si uu uga caawiyo xoghayaha guud arrimaha la xiriira xal nabadeed oo loo helo khilaafka ka taagan Soomaaliya. Maxamed Siyaad Barre wuxuu kaloo bogaadiyey dalka Maraykanka oo ciidan u soo diraya xeebaha Soomaaliya si ay u caawiyaan howlgallada Qaramada Midoobay. Wuxuu yidhi, uma aragno tallaabadaas inay tahay caqabad, laakiin waa xoog caawimaad oo gacan ka geysanaya nabadda dalkeenna. Si kastaba, wuxuu sheegay inuu welwelka uu qabo la qaybsaday dalal uu ku sheegay waddamada saaxiibada ah sida Maraykanka, waddamada Yurub, waddamada Afrika iyo waddamada Carabta, khaasatan Sacuudiga, uuna ka codsaday inay caawimaad baaxad leh u fidiyaan dad ka kooban 1 milyan iyo bar oo u baahan caawimaad degdeg ah oo dhanka cunnada iyo daryeelka, kuna sugan dalka gudihiisa iyo xuduudaha Kenya iyo Itoobiya. Wuxuu yidhi, waxaan wargeliyey dowladahan inaysan ku dhex wareerin arrimaha siyaasadda iyo si ay nabad uga sameeyaan Soomaaliya inay wada shaqayn la yeeshaan hogaamiyaasha dhaqanka, aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta wanaagsan ee aaminsan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Wuu sii watay, wuxuuna sheegay inuu baaq u diray Qaramada Midoobay in shuruudaha ciidan nabadeed loogu daabulayo Soomaaliya inaysan la mid noqon xaaladdii aan ku sugnayn 1950 ilaa 1960 oo ahayd maxmiyadii Qaramada Midoobay. Bogga saddexaad, oo ah kan ugu dambeeya, wuxuu tilmaamay in si xaaladda Soomaaliya loogu soo afjaro wakhti hore inuu u soo jeedinayo hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed sida boqorrada, garaadada, malaaqyada, suldaanada, imaamyada, islaanada iyo wabarrada, ugaasyada kuma uusan soo darin inay go'aansadaan inaysan wax dadaal ah la harin si loo dhaqangeliyo hindisaha soo socda ee lagu hubinayo laguna soo celiyo madax-bannaanidii iyo ummadnimadii. Hindisaha uu u soo jeediyey Kaaba qabiilada wuxuu ku bilaabay: kow, in la taageero dadaallada nabadda ee Qaramada Midoobay iyadoo la kaashanayo Ururka Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Ururka Yurub, iyadoo la aqoonsanayo intaasi ay tahay danaheenna. labo, in lagu dadaalo in la hagaajiyo amniga iyo xasiloonida garoomada iyo dekedaha si loogu gogol xaaro gaarsiinta qalabka gargaarka inuu gaaro dadkeena macluulsan. saddex, in la abuuro tallaabooyin kalsooni dhisid ah oo u dhexeeya dadka gobollada deriska ah si loo raadiyo soo celinta nabadda iyo wadahadalka iyadoo la isticmaalayo tallaabooyin ku jaango'an hababka dhaqanka. afar, in la diido lagana fogaado isbahaysiga cusub ee aan barakada lahayn ee qaabkiisu yahay qabiilka. Intaas kadib wuxuu kula dardaarmay muwaadiniinta dalkaygu, wiil ayaa ku dhinta dagaalka, kuma dhasho. Wuxuu ku soo afjaray, waan idiin mahadnaqayaa dhammaantiin, kadibna saxiixisii ayuu ku duugay. Midda xiisaha leh waa in saxiixa kadib uu qortay inuu yahay darajada madaxweyne, iyadoo 2 sano iyo bar ka hor xukunka xoog laga tuuray. Hase yeeshee, warqaddan warqad ka dambaysay oo 2 bog ahayd oo uu 10kii bishii Februari 1993 u diray madaxweynihii Maraykanka, lagana helay maktabadda kaydka Bill Clinton, wuxuu ku saxiixay inuu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ingiriis, Jaamacadda King's College London.